bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiina meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan muuqaal kale muuqaalkeena waxaa maanta uga hadli doonaa kooxda kubadda cagta Heegan ayaa maanta ku dhawaaqday macalinkeeda cusub ee leeli doona fasal ciyaareedka soo aadan naadiga ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan ayaa magacaawday macalin cusub kaas oo bedel u noqday macalinkeedii hore ee ayarta xidigii hore kooxda kubadda cagta Heegan Maxamed Xaaji Macalin ayaa loo magacaabay xilka macalinimo ee kooxda Heegan maamulka kooxda Heegan ayaa u arkay in xidigooda hore Macalin ay u magacaabaan xilka tababarnimo ee kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed Heegan kadib bandhig xumaa ay soo bandhigtay kooxda Heegan kulamadii laga ciyaaray koobka General Daawud oo dhawaan soo ilaaday Maxamed Xaaji Macalin ayaa muddo 8 sanadood u dheelayay kooxda Heegan isagoo ciyaaryahan ah wuxuuna kula guuleystay hal koob oo horyaalka Soomaaliya Premier League sanad ciyaareedkii 2015-16 tobabare Mahad wuxuu imika ka tirsan yahay xulka qaranka Ocean Star isagoo turjumaan u ah macallimiinta ajaanibta xidigaha xulkeena kaas oo mar walba ama kulamadii ugu dambeeyay xulkeena uu raacayay iskasaba Mahad ayaa ka soo muuqan doona saxada macalinimo isagoo macallin ah horyaalka soo aadan wuxuu hogaamin doonaa kooxda Heegan waxaana muddo ugu dambeysay 2015-16 ku guuleystay horyaalka Soomaaliya waxayna sanadka rabtaa in Macalin uu meel wanaagsan gaarsiiyo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiicnay ee soo maray kooxda Heegan wuxuuna ka ciyaari jiray garabka midig ee daafaca Macalin haddaba aragtidaada hoos inoogu reeb commentiga subscribe like iyo share